markaan ka soo guuray carradu baantay inaad maqasheen iyo in kale mooyaan ka soo wareegay anoo adhi fiican oo laba tira wata iyo gaadiidba iyo halo yaa anoo dhexda soo maraya islaantii iga dhimatay anuu soo gaadhin weli degmada reer Cabdille anuu carruurta joogayna wataan ku soo dhaadhacay dhulkii haddana ay keentay meeshii reeruhu joogeen markaa bal mashquulada aan soo maray markaan wax ka taataabto marka hore aniga carruurtii yaa isku rafaadnay wada carruur waxay noqdeen hooyo dhimatay oo rajo u yimid oo anigu aan hooyo u noqday hawlihii islaantii iyo gudbanayd baa midnimo maalin ugu soo baxsatay dhacdooyinkaa markaan ururiyey anuu gabay baroordiiq aan ku tirinayo islaantii ugu ooyaya habeenkaasaan soo gabagabeeyey dhacdooyinkii waxaan tiriyey gabaygan waxaan idhi inkastooy masiibadu dhacdo oon cidina maaraynin oo mawdka loo wada dhasho la isku marinayo dadku kale muhiimsane hadday madaxda kaa jiido marwadii hadday kaa dishood magan alle aasto gurigoo madow iyo hadday maxasta kuu reebto iyaduna intay madi ahayd aan mid kala joogin mashquul aad la jaahjaahataa lagu muquursiine mas-uul waa haweenka raguu muunad banna adiya maatadaadii mar baa dib u masowdaan wixii mood ahaa reerka wuu kala midh siibtaa maacuunta oo daadsan baad milicsi dhowrtaa midkii adhiga luma jeer dambaad weynay maqashaa haddana meella kuma qaybtid oo waad ismoogtahay mas-uul waa haweenka raguu muunad bannahay innaga reerka unbaa laynagu qurxiyey mas-uulku waa haweenka mushmushaaxiddii iyo lawaah meel fog socodkii maslaxada qabiilka iyo tashiga maqan halkaagii dantii baa maxbuus kaa dhigtiyo guriga meermeer mabda'aagu waa xoolihii maanta yeelooy mas-uul waa haweenka raguu muunad bannahay sidii ruux majnuun oo kalaad dhinac ku moodaa adoo maagan baa lagu arkaa mararka qaarkood muran iyo dagaal baad gashaa maalin iyo leyd malkaday fadhiday baad ogaan meheeradeedii mas-uul waa haweenka raguu muunad bannahay makas bay xurmadu kaa gashaa odu muhataa martina kama xilbeelaysid iyo mudanahaagii adaaba mooyaan ku dhici oon macno lahayn manfacaad adamisaaba waa midad salugtaa halkii malab lagaa siin jiraad waaga midhataa mas-uul waa haweenka raguu muunad bannahay midhahaanse tilmaamayo in haatan magacaabay iyagu waa waxaan soo marayoo male caloolyo wey mushakiga dambe een qaaday baa muran ka joogaa haddii mawdku ii kaadiyoon madaxa laygoynin oon maarmi waayo haween maagadamacayga muddo badan haddii aan xulo dumar ku meeraysto haddii aan mid kala soo baxoon maanka ka heshiino oo la ii mehiirsiiyo oo meher la ii saaro midabka iyo itaalkiiyo haddaan meela uga guusho miyirka iyo xishoodkaba haddii ay maryamo gaadho haddii ay mataanaba noqdaan quruxda miitaalka makrigay ku kala leexan iyo maqalladoodii miyay maamulkii la ibariyo mihigiskii keeni waa maya miyay tala muhiimoon gartiyo mawjad igu dayrin dhaqan lagama maarmee miyay maalka uga rayn miyay iga manciyey neef anoo mara u siinayo mahuraanka ii iman miyay maxabad deeqsiin magacii siyaadiyo miyay muujin sharaftayda axmed iyo mogool iyo miyay khadar mirqaansiin miyay madax salaaxooda iyo maydha la ogaan marka xigaa aniisiya nimcana mahad miyay sheegan masalooyinkaa naa ku filan oon mid qura diidin inaan meel la seexdaayo waa maaddo qaali ah meel dheerse anigoon ka dayin una masaafoonin inuu mawlahay ii sikhiro waa mid la arkaayo allah yow adaa maaliga heshaal muraadkayga baan